كنت وين ساحب يا سود ولا قيبتان waxaan ku eegi doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la filayo in saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo isbedel uu ku sameynayo ciidamada qeybahooda kala duwan hadii noqon lahaayeen nabadgelyada booliiska iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedba saacadii la soo dhaafay kulan xasaasi ah oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo saraakiisha ciidamada qeybahooda kala duwan ku dhaxmaray fila Soomaaliya ayaa madaxweynaha waxa la sheegay in uu ku canaantay saraakiisha in ay ka gaabiyeen guud ahaanba amniga caasimada iyo kii goboladaba kaas oo maalmihii la soo dhaafay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu u sheegay saraakiishan in al-shabaab ay soo xoogeysteen ayna qabsadeen deegaano iyo degmooyin badan oo al-shabaab hore looga saaray iyadoo xusud madinta in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xalay saraakiishan hor dhigay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed fariisintii ugu weyneed oo aadan yahay ku lahaayeen al-shabaab wax ka yar saacada ay ugu soo saareen isla markaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhaxtaageen ceeb iyo fadeexad isla markaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu rabo inuu isbedel ku sameeyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwada ugu sarsareeyay isla markaana isagoo si gooni ah u carbaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu rabo in uu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed abaanduulo ciidan magaca isagoo meesha ka saaraya taliyada ciidamada dhulka sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa filayaa in uu sidoo kale isbedel ku sameeyo taliyihii nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe oo la filayo in lagu soo bedelo taliyihii hore nabadgelyada Mahad Salaad Maxamed oo hadda ah musharax madaxweyne maamulka Galmudug u tartamaya sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa filayaa inuu isbedel ku sameeyo taliyihii ciidanka booliiska Asad Cabdullaahi Cismaan Asad Diyaano inuu isagoo rabo inuu ku bedelo nin lagu magacaabo Sahal oo ka tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiishooda ugu sarsareysay saacadii la soo dhaafay kulan fila Soomaaliya ku dhaxmaray sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wasaare Xamse Cabdi Bare iyo ninka la rabo in loo magacaabo taliyaha ciidanka booliiska ayaa waxa isla qaateen in guud ahaanba taliyaha ciidanka booliiska Asad Cabdullaahi Cismaan Asad Diyaano in laga qaado xilka isla markaana loo magacaabo Sahal laga dhigo taliyaha ciidanka booliiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in magacaabistan uu soo kala hormariyo balse magacaabistan sida xogo hoose ay ugu soo gaarayaan waxa ay sheegaysaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu rabo inuu ka bilaabo magacaabistan taliyaha ciidanka nabadgelyada sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe kaas oo la filayo in lagu bedelo taliyihii hore nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saraakiishan waxa uu ku dacaayaday in guud ahaanba ay ku fashilmeen amnigii caasimada iyo kan gobolada maadaama bilihii iyo maalmooyinkii la soo dhaafay al-shabaab ay xoojiyeen weerarada gaadmada ay ka fulinayaan qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyagoona maalmihii la soo dhaafay magaalada tan caasimada ee Muqdisho ku soo tuuray hoobiyaal meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha ayaa saraakiisha waxa uu ku canaantay in guud ahaanba ay ka gaabiyeen amniga caasimada iyo kan gobolada dalka isagoona si qaas ah xalay u bartilmaameysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyihii maxkamadda ciidamada qalabka siday gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute iyo taliye Odawaa Yuusuf Raage isagoona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud raggan xalay ku dacaayay ama hor dhigay in guud ahaanba ay ku fashilmeen hogaaminta ciidamadii ay ku hogaaminayeen dagaalka gaar ahaan furmaha hore ee dagaalka maalmihii la soo dhaafay Shuute iyo Odawaa waxay ku sugnaayeen furmaha hore ee dagaalka iyagoona ciidamada halkaas khudbado dhiirigelina ugu jeedinayay waxayna halkaas u joogeen labada nin dardargelinta dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab balse ugu dambeyn al-shabaab waxay qabsatay fariisintii ay ku sugnaayeen Odawaa iyo Shuute iyagoona ilaa hadda halkaas al-shabaab laga saari laayay si kastaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in bedel dhab ah uu ku sameeyo hoggaanka ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan isagoona rajeynayo in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saacadaha soo socda uu soo saaro awaamiiro culus oo ka dhan ah saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo kuwa uu magacaabi doonaba wixii warow ka soo kordho isbedelkan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sameynayo hoggaanka ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan adiga ayaa ugu horeyn doona haddii inta ila soo gaarto waxaan ka codsanayaa inaad subscribe channelka like na saartid si saaxiibo badan uu gaaro aad iyo aad u mahadsantahay